Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelkeena. Maanta waxaan isku dayeynaa inaan sameyno cashirkeenii afraad ee HTML-ka. Marka waxaan sameeyay 04 waa cashirkii afraad folder aan sameeyay. Folderka loo sameeyay sida loogu soo tuuro Visual Studio Code-ka. Waxaan kaga hadalnay cashiradii hore. Marka halkan waxaan sameynay new file kaas oo ah HTML. file-kan waxaad ka dhigi kartaa extension-ka waxaad doonto HTML ama CSS ama JavaScript kolba kaad adigu rabto. Marka calaa kulli xaal hadda waxaan leenahay new file. magaca doonta ayaad ku qoranaysaa laakiin badanka index ayaa lagu qoraa. laakiin adiga magacaaga ku qoran doonta waxaad doonto ku qoranta waxaad adigu fahmayso weeyaan muhiimadu. marka extension markaan isticmaalayno Emmet oo kale ayaan isticmaalaa waxyaalaha ugu fiican ee loo isticmaalo xawayaan. laakiin qofku hadduu beginner yahay waxa uu fiican inuu ku qoro notepad si uu code-ka u xifdiyo. inta badan marka wuxuu ku sameynayaa skeletal-ka HTML-ka ku sameynayaa. kadib waxaan waan bedelayaa title waxaan leeyahay lesson 04 baan leeyahay. marka maanta waxaan ka hadlaynaa laba mowduuc oo HTML-ka dhexdiisa formatting iyo comments. labadaas ayaan ka hadli doonaa waxa ay yihiin. waxaan soo qaadanay hadda ka hor yani elements heading iyo paragraph-ka waan soo qaadanay. marka imika text aan halkan ku qorqoray ayaan soo koobiyeysanaya. copy aan leenahay. kadib halkan waxaan ku qorayaa h2 waxaan ku dhex koobiyay waxaan ku sii daayay adiga waxa doontaad ku dhex qori kartaa. waxaan ku sii daayay kusoo dhawaada HTML-ka qaybta afraad ayaan ku qoray. haddana paragraph yani waxaan oo dhan ka soo hadalay paragraph aan sameysanayaa. iyana waxaan ku sii deynayaa kan ayaan ku sii deynayaa qoraalkan. marka labadoodii waad aragtaa. haddana iminka aan live server aan dhaho open with live server يعني wuxuu ku fiican yahay kolba markaad wax saa u galisaba automatically isu sii bedelay. halkan ku soo dhawaada baa ku qoran halkan casharka afraad wuxuu ku saabsan yahay formatting. marka hadaba formatting muxuu yahay weeyaan su'aashu. formatting iminka markaynu qorayno kale format waxaan dhihi karnaa hadda markaad word ama document aad qorayso word-ka dhexdiisa waxaad cashirka ama waxaad qoraysaa u sameysaa far waaweyn far madmadow tojejeefta italic bold strong waxaas oo dhan baad soo marka waa HTML-ka qaabkaas aad u sameyn lahayd qoraalka aad qortay. haddaba waxaan imika aan rabnaa inaan u sameyno kan waxaan dhahaynaa tusaale haddaan mar kale koobiyeysto si aan marka halkan si loo kala fahmo waxaan leeyahay space baan yar dhaxaysiinayaa. pr waa prick space bay u dhaxaysiinaysaa marka marka halkan waxaan leeyahay emphasis baan leeyahay. waxaan rabaa inaan italic ka dhigo. italic iyo emphasis no difference. kadib waxaan leeyahay ku sita halkanna waxaan leeyahay bold iga dhig. bold p baan qoraynaa. bold afarto madmadoobaysa weeyaan. يعني formatting waa inaad document-gii aad qortay aad bedeli karto say soo muuqanayaan. haddaba halkan haddaynu imika eegno maxay noo soo muuqda kan wuu isjijiifiyey kan wuu isjijiifiyey madaratan weeyaan kan wuu isjijiifiyey. kaasina muxuu sameeyay isaguna madow ayuu noqday. marka madow ayuu isaguna noqday. haddaba halkan nabalaynu iyana gelina italic formatting soo dhaxgal labadan waa isku mid. bold sorry waan sala taabtay. comments kan gelina isna bold andho marka aan ku sii dhaxdeynaya isagana marka halkan aan ku sii dhaxdeynaya. marka markaan save dhaho halkan waxa kaaga muuqda inuu labadoodiiba ay halkan ay isku mid yihiin no difference wax difference ay leeyihiin malaha. haddaad labadan u fiirsato mid waa kan laakiin formatting kala duwan kan waa emphasis strong kana waa emphasis kana waa italic bold. so ka haddaad xitaa strong kan labadooda pp baan nirso. marka halkan haddaan xitaa strong dhaho waa isku mid bay noqonaysaa. strong
waad aragtaa kan no difference xuma yeelanayaan isku mid bay noqonayaan marka waa saas weeyaan. halkan oo kale haddaan imika aan rabo markaad aragtaan hadda markaad fiirinaysaan imika hydrogen oo kale hydrogen oxygen oo kale marka la qorayo O2 iyo H20 bay noqonaysaa. marka sidee loo qorayaa oo kale weeyaan. imika afraadkan oo kale marka textiga aad u fiirsato afraad halkee ku yaala halkan eeg halkan afraadku sidoo yahay yani hoostu kaga yaala inaan kor ka geynaa rabnaa. marka waxaan sameynaa marka subscript aan ku sameynaa waxa la dhaho subscript. marka afraadkaas aan geynaa markaas aan dhex gelinayna kusida save day. markaas taanu keyboardka aan isticmaalay inuu la socotaan weeyaan. marka halkan waad aragtaa ku taga qoraalka marka hore halkan hoos u yaalay tusaale kaas aan inoo bedelayaa intaan copy kadib halkan aan ku sii deynayaa marka halkan waad aragtaa kor ayuu fuulay qoraalkii waxaa keenaya markaa subscriptigaas kor ayuu saaraya. marka imika haddii aan rabo inaan aad hoos aad dhigto textkan hoos ayaan dhigaynaa waxaad bedeli halkan hoos baad sabdhihin b baad ka dhigay markaad b ka dhigto ka kalena hoos ayuu aadaya. marka halkan ma fiirso marka formatting waa aad u fara badan marka Google Gare W3 Schools aad MDN aad ka jeegare aad ugu celceli. marka comments hada muxuu yahay comments waxa weeye programming marka la isticmaalayo qofka qoray markasta ma dul taagnaanayo waxa laga yaabaa qof kale inuu editing ku sameeyo inay marka dadkii aad u sameysay ay rabaan in wax looga bedelo. marka comments waa inaad ku dhex sameysaa hadii kale 200 oo kun oo kood qortay cid ma kala fahmayso. marka comments-ka programming ayaa loogu sheegaa halkan waxa ayaan ku sameeyay. tusaale kale imika haddaan rabo inaan textigan halkan aan ugu sheego qofka koowaad oo leeyahay page markuu soo galo koodka uu edit gareynayo aan ku leeyahay halkan ka hooseysa slide barka page-ka koowaad weeyaan. haddaan rabo inaan dhaho qofkii uu ogaanayaa marka waxaan waxay yihiin marka yani comments-kan marka halkan ku qortay waa inuuna kasoo muuqanin muxuu ahaayey page-kaaga halkan waa inuuna kasoo muuqanin halkan waa inuuna kasoo imika haddaan saa iskaga daayo save dhaho waxaad aragtaan halkan wixii baa iska soo muuqanaya. marka comments-ka inuu soo muuqdo maaha markasta. marka comments-ka HTML-ka waa sidan weeyaan keyboardkan anigu badanka isticmaalaya halkaas waa less than calaamatul yaab minus intaas haddana waxaad kusoo xidhaysaa minus greater than baa kusoo xidhaysaa marka comments-ku waa saas. markaad comments aad rabto inaad qorto hadda halkan baad dhihi sidan baad dhihi calaamatul yaab minus waxaad leedahay marka uu soo xidhaya waxaad leedahay dhammaan waxaan ka hooseeya waa يعني marka qofka programming ayaad u sheegaysaa waxa ayaa ka hooseeya waxa ayaad ka bedel kartaa marka wixii ma soo muuqanaya halkan kama soo muuqanaya. marka cashkana maanta inta ayuu ka saabsan yahay fadlan haddii aad wax comment iyo faalaan noo hayso comment section noogu reeb wixii aad isleedihiin ka bedelana markasta hoos iyada noogu reeb aad u mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.